الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. walaalayaal, waxaan halkan isaga soo gudbinaynaa in sha allah muxaadaro diiniya oo aynu wax isaga sheegi doono fadlu lcilmi waalculamaa, fadliga iyo qiimaha uu leeyahay cilmigu iyo dadka culamada ahee ayagu shariicada islaamka xambaarsan ee diinta islaamka bartay qiimaha iyo wanaagga ay leeyihiin, sida ay lagama maarmaanka iyo waajibka ay u tahay barashada diinta islaamku, iyo qiimaha uu yeelanayo qofku adduun iyo aakharaba markii uu diinta islaamka barto haddana uu ku dhaqmo. in sha allah mawduucaas ayaynu wax isaga sheegi doonaa, cilmiga iyo qiimihiisa, cilmiga iyo barashadiisa, cilmiga iyo dadkiisa, intaba aynu wax isaga odhan doonno in sha allahu tacaala. wuxuu odhanayaa rabbi subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa casiiska ah: qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakkaru ulul albaab. waxaad tidhaahdaa xabiibka muxamedahow, miyay siman yihiin dadka cilmiga leh iyo kuwa aan cilmiga lahayn? maba sinee, istifhaam inkaariya weeyaan. miyay isku mid yihiin? miyay isla siman yihiin? islamaba sinee. dadka wax garanaya ee cilmiga iyo aqoonta diinta u leh iyo kuwa aan waxba ogeyn ma sinna weeyaan. inamaa yatadakkaru ulul albaab. waxaa waansamaya oo qur'aanka iyo diinta iyo xikamta qur'aanku uu sheegaya iyo amtaasha waxaa ku waansamaya dadka caqliyada leh oo garashada u saaxiibka ah. kuwaasunbaa waana qaadanayuu odhanaya rabbi subxaanahu wa tacaala. aayad kale qur'aana wuxuu ku odhanayaa rabbi subxaanahu wa tacaala: yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat. wuxuu ilaah sare u qaadayaa kuwa adinka idinka mid ahee cilmiga la siiyey, kuwa adinka idinka mid ahee ilaahay rasuul rumeeyey buu ilaah kor yeelayaa. wuxuu si gaara ilaah darajooyin dheeraada haddana uu usii siinayaa ee uu sare usii qaadayaa dadka cilmiga iyo aqoonta iska leh. dadka cilmiga iska leh ee mu'miniinta ah oo adinka idinka mid ah, iyadoo guud ahaanba ilaah uu sare u qaadayo dadka mu'miniinta ah, ayuu haddana ilaah wuxuu darajaad dheeraada iyo darajooyin sare uu gaarsiinayaa dadka ahlu cilmiga ah ee adinka idinka mida buu odhanayaa rabbi subxaanahu wa tacaala. maxaa yeelay qofku mar haddii uu cilmi barto, cilmigaasna uu ku dhaqmo, wuxuu noqonayaa addoon dhaba ayuu noqonayaa. qofku wuxuu addoon ku yahay wax alla iyo wixii loo diray inuu ka soo baxo